Assalaamu calaykum. Ku soo dhawaada muuqaal cusub. Waxaan halkan idinku soo bandhigi doonaa qisada jacayl guul daraystay oo 100 sano jirsaday, balse sabab u noqotay guul weyn oo u soo hoyatay shakhsigii ay ku dhacday, kaasoo 2 mar ku guuleystay abaalmarinta Nobel Peace Prize-ka. Balse intaan u gudagalin faahfaahinta sheekadan, haddii aad nagu cusub tahay nagu soo biir oo subscribe dheh adigoo furanaya gambaleelka si ay kuu soo gaaraan muuqaaladeen cusub. Mahadsanid. Qisada sheekadan waxay ku socotaa haweeney lagu magacaabo Marie Curie, taasoo dhalatay sanadii 1867, waxayna dhalasho ahaan ka soo jeedaa dalka Poland. Waxay ahayd mid ugu yar qoyskeeda oo ka koobnaa 5 carruur ah, waxaana iska dhalay aabe iyo hooyo macallimiin ah oo wax ka dhigayay iskuulada dalka Poland. Marie waxay ahayd mid ku nool nolol aad u wanaagsan oo degan, laakiin taas ma ahayn mid sii socotay waqti dheer. Maxaa yeelay iyadoo 12 sano jir ah waxaa geeriyootay hooyadeed. Sidoo kale waqti yar kadib walaasheed ka weyn ayaa u dhimatay cudurka tiifowga. Muddo yar kadib waxaa musallifay oo shiiday aabaheed, taasna waxay horseed u noqotay in Marie iyo walaalaheed ay ku noolaadaan nolol aad u adag oo cariiri ah. Marie waxay go'aansatay in ay isku tashato oo ay shaqayso si ay u sii wadato waxbarashadeeda. Waqtigaas in dumarka ay jaamacad ku biiraan, gaar ahaan dalka Poland, waxay ahayd arrin mustaxiil ah. Iyada iyo walaasheed ka weyn ayaa waxay isku waafaqeen in ay Marie uga sii hormarto magaalada Paris ee dalka Faransiiska si ay u soo barato caafimaadka. Waxayna Marie ballan qaaday, ama waxay walaasheed Marie u ballan qaaday in iyadu ay ka dhiibi doonto qarashka jaamacadda. Marie waxay shaqadeeda ka bilowday barbaarinta carruurta, waxayna u shaqayn jirtay qoys iska ladan isla waddankeeda Poland. Balse muddo yar oo ay reerkaas u shaqaynaysay, waxay isbarteen wiil da'deeda ahaa oo reerka ka tirsan, waxaana dhex martay qiso jacayl oo aad u baaxad weyn. Wiilkaas jeclaadeen Marie oo ahaa kan ugu weyn qoyska ay u shaqaynaysay waxaa lagu magacaabi jiray Kazimierz Tarofsky. Balse markii ay qoyska ogaadeen xiriirka uu la leeyahay Marie, xaaladda waxay noqotay mid ku xun Marie. Maxaa yeelay qoyska Kazimierz Tarofsky waxay si aad ah uga soo horjeedeen in wiilkooda uu xiriir la yeesho gabar faqiir ah, misna iyaga u ah shaqaale u xanaanaysa carruurta. Waxaa Marie laga eriyay shaqada si looga gooyo in ay dib dambe u aragto Kazimierz Tarofsky. Wixii intaas ka dambeeyay, Marie waxay ku noolayd nolol niyad jab ah, laakiinse ma ahayn mid isdhiibtay oo ka quusatay in uu u soo laabto ama ay dib u aragto Kazimierz Tarofsky. Dhanka kale, Marie iyo walaasheed ayaa waxay isku khilaafeen, ama Marie waxay diiday in ay waxbarasho u aado Faransiiska ilaa ay ka hantiso jacaylkeeda Kazimierz Tarofsky. Marie xaaladaas ayay ku sugnayd muddo bilo ah, ilaa markii dambe Kazimierz uu fariin qalbigeeda jebisay u soo diray, una sheegay in uusan awood u lahayn sii wadida xiriirkeeda, reerkiisana uusan ka hor imaan karin. Walbahaar iyo murug kadib way isdhiibtay Marie, laakiin waxay ku dhaaratay in Kazimierz iyo reerkiisuba ay ka shalaayi doonaan maalin maalmaha ka mid ah. Sidoo kale waxay ballan qaaday in dhammaantood ay tusi doonto guusheeda. Waxay u safartay Paris, waxayna bilowday jaamacadda. Waxay qol aad u yar ka ijaaratay fooqa sare dabaq u dhowaa jaamacaddii ay dhiganaysay. Sidaas ayayna ku bilowday cashiradii jaamacadda. Waxay raashin ahaan u cuni jirtay rooti qalalan iyo biyo cad, maadaama qarashka ay haysatay aysan u suurtagelinayn in ay cunto fiican ku cunto ama ay labis ku soo gadato. Sidaas ayay Marie ahayd mid ku sabirta una dulqaadata nolosha adag ilaa ay ka heshay shahaadada magisterka, iyadoona ka qaadatay fiisigiska iyo xisaabta. Sanadkii 1895 waxay isbarteen caalimkii weynaa ee cilmiga fiisigiska Pierre Curie, wayna isguursadeen. Pierre Curie jacaylka uu qabay Marie waxa uu si hagar la'aan ah garab ugu siiyey raadinteeda ku saabsan barashada ishcaaca ama laserka. Waxayna ahaayeen kuwo isla shaqeeya habeen iyo maalin ilaa ay ka soo iktishaafeen labada cunsur ee poloniumka iyo radiumka, kuwaasoo ka qayb qaatay horumarinta in cudurro uu kansarka ka mid yahay lagu daweeyo laserka. Sanadkii 1903, Marie iyo saygeeda Pierre waxay si wada jir ah ugu guuleysteen abaalmarinta Nobelka fiisigiska.
waxayna sidaas markii ugu horreysay ku noqotay Mary haweeneydii ugu horreysay ee ku guuleysata abaalmarintaas. Sanado yar kadib, Mary si shakhsi ah waxay mar labaad ugu guuleysatay abaalmarinta Nobel Peace Prize-ka gaar ahaan cilmiga fiisigiska. sidaas waxay mar kale ku noqotay haweeneydii ugu horreysay taariikhda ee 2 mar ku guuleysata abaalmarintaas. dadaalada iyo baaritaanada Mary waxay kaalin weyn ka soo qaateen horumarinta cilmiga ishcaaca ama laysarka ee ilaa iyo maantadan lagu daweeyo cudurka kansarka qaybihiisa kala duwan. sidoo kale waxay aasaastay xarun lagu daweeyo kansarka kaasoo ilaa iyo maantadan shaqeeya. Mary waxay geeriyootay sanadkii 1934 waxayna u geeriyootay kansarka dhiigga oo ay ka dhaxashay maadooyinka kiimikada ah ee ay muddada dheer ku soo dhex jirtay kuwaasoo waqtigaas aysan aqoon u lahayn saameyntooda. nala wadaag fikirkaada, jacayl aad ku guul daraysatay ma kugu hogaamiyey guul weyn? fikirkiina noogu soo hagaajiya qaybta commentiga. sidoo kale ka iloowina inaad like saartaan muuqaalkan lana sii wadaagtaan asxaabtiina. mahadsanidin.